الماذا ريالو فيديو دير سوستمي لك أصحابتي ذي قارئ فهمنا مش كجرت ما فهمتي قف كان حودها إيدد بدن لبسنا بجرتي سيكو حسوسة أباها وحقودها ديارة مركا سورة عيسين guys أنا قبل عد أنت ديارة كسورة من صوت مي إيمان إما يفهمين أنا قبل عد ديارة أنت كسورة عي من صوت مي إيمان أنا ولا بس نجرو waxaan igu dhahay anaga reer balcada ahayn balcada ku dhashay balcad waxa ka imaada sanad iyo 2 sano ma aqaan anoo jiro ka bacdi waa inay sheegay Kenya soo galnay aabahan ba sponsor inoo xareeyay ka bacdi yaa Mareykanka imaanay saas mini sheegino conversation marka idin dhahay waxyaalaha ugu horeeyo xasuusteeda kamid ah wuxuu ahaa aabahay markuu gadaal intuu noo soo fiiri uu saas dhahay waxay ahayd marka Kenya ka soo baxna oo Mareykanka imaanayna qaxootiga kaakuuma ka soo baxnay Minnesota u soo socona wala waxa u soconay Michigan wala Mareykanka marka soo galeynay ahayd markaas waa marka idin leeyahay aabahay waxaan xasuustaa asoo saas idhaayo sameedan fahmin guys aniga waxa laga yaabaa waxyaalaha hadda shalay haday dhahdeen maxaa ku quraacata ma xasuustay laakiin waxyaalaha marka jira 5 sano 6 sano waxaan u xasuustaa like inay hadda i hor yaalaan oo kaleeto taas waa marka sheekooyinkan idin kaga sheekay si fiican u xasuustaa because waxyaalaha marka qaxootiga joognay trauma badan soo marnay ma fahantay anaga ma ahan faqiirnimo kaliya gaas trauma badan soo marnay qaxooti marka tahay oo faqiir tahay oo aabihin idin ka maqan yahay oo aabadan tihiin there's a lot of trauma anagana waxa ahan unfortunately dadka traumada soo mareen but alhamdulillah rabbil alamin because of my dad 100 times because of my dad my dad and Allah subhanahu wa ta'ala were able to come so meedan fahmin marka waa idin sheekay walaalayaal aabahay waa ka hesheen you guys aabahay waa ka hesheen hal video ina ka sameeyo waa engineerku ugu bixiyo dad badan been isku wacaan engineer like wallahi bilaa tala aabahay is the original OG been ma idin sheegay aabahay engineer u dhawa wallahi bilaa tala ma fahamtay aabahay asagoo talyaaniga joogo ayaa dawladda Soomaaliya inta u maatay waxay dhahday textile chemical engineer adduunka way ku yar yihiin oo madow oo Soomaali ah wadankaaga ku baahanaa lagu dhahay kaaba soo bax ma fahamtay guys aabahay igu soo duceeyay I want him alhamdulillah uu noolyahay uu caafimaad qaba waa excellent shape ma fahamtay young man oo jag ah ku dhahay ma fahamtay laakiin u soo duceeyay that he lives forever inuu noolaado aabahay igu soo duceeyay because I wish aabahay inuu book qori lahaa storygiisa because waaba wuxuu sameeyay aabahay qof sameyn kara ma jirto wallahi bilaa dad badan way iska faanaa waxay dhaanaa aniga ay ka like aabahay wuxuu sameeyay qof sameyn kara ma u maleena inuu adduunkan jiro adiga hadarta adoo Kenya joogtid oo lacag haysanin oo faqiir ah oo cidna ku biilo cidna waxba ku qabanaynin xaas iyo caruur badan qaxootiga ku joogaan inta miskaxdaada iyo aqligaada iyo alakaashigaada ma ku keeni kartaa Mareykanka oo musuq maasuqi waxba lahayn straight up adiga inta u xareysatay sponsor ilmahaaga diyaarad soo saaratid adoo la dheereynaysa Michigan ma ka soo deegi kartaa aniga adarta anigoo master's degree haysto wallahi bilaa talana sameyn karin ilaaha been ay hadii hadda aniga ligu celiyo ka kuma ligu celiyo oo ligu dhaw ilaaha qabtaa ka soo bood gabar ilmahaaga iyo adiga iyo 10 cunug oo kale i qaraabo i soo dhoofi Mareykanka kan wallahi bilaa talana sameyn karin aabaheena saas wuxuu sameeyay asagoo waxba haysanin oo support haysanin oo cid daba joogto oo haysanin oo maxaa ku dhahaye asaga kaliya bas isku tashanayo wallahi bilaa sanadka la soo dhaafo waxa bartay cidna uma maqna ceelna uma qodna gabar walaashay ka bartay ma fahamtay anaga waxa ahayn laakiin the original people oo cidna u maqnaan ceelna u qodnaan once in a while dad qaraabaha lacag yar nagu soo tuuri jireen lacagta ugu badan oo naloo soo tuuri jireen waxay $50 laakiin waa ogtahay ibn aadanka adduunka si kasta ay ku jecel yihiin wax yar mar iyo 2 mar hadii lagu caawiyo ibn aadanka way ku dhibsanayaan ilaa hadarta ani walaalahay marka isku imaana waa isweydiinaa guys konto ka dooram isku darnaa muu celiyaan because the day ay yareen ilaa iyo hadarta maxaana lagu dhahaa waadin soo korinay bari baa lacag idin soo dirnay waadin soo korinay waana loo mana sheegtaa ma fahamtay soo mar waxa ay qabataa ani walaalahay lacag inta isku ururna ma siinaa laakiin at least we qof maalin ku support le waayadan we say alhamdulillah we say thank you wa ka soconayna ma fahamtay marka waa xasuustaa wax kasto oo markaa yaraa waa xasuustaa qof kasta oo hal aray igu dhaho waa xasuustaa wallahi oo billah oo tala 4 jir marka ahaa waa xasuustaa I remember 5 jir waa xasuustaa 6 jir waa xasuustaa 7 jir iska dhaaf qof weyn ahaabo perfect oo xasuustaa
waxyaalaha oo xasuusteeda markaa xasuusto oo qalbigay farxad galiyo waxaa ka mid ah I remember anagu qaxootiga joogno oo taraamo badanna soo martay oo dhibaateena heesato aabahan uu naga maqnaan jiray cunugna aabihiis hadduu ka maqan yahay ciil kama maqna hadduuba cunug aabihiis ka maqan yahay cunugaas ciil kama maqna ما فهمتي أبين ونجمع قيها هذا أنت جورجان نوجو ماذا ندرس كان أبيوس جري أنت جورجان نوجو ماذا حن لجر أبهات أون كون أبو مرحمية ها أما مركي أو وحير لوجوس ما أما العكر لوجوسي أنت نلو ماذا حن لجر والدي سكري وهذا بيلنا العقب إنسينا سيدا guys هذا إذا كجشك ترى ماذا صومرني من الوجوس كوبي كرم جرتو ما فهمتي لكن my favorite story markaa raa xasuustaa waxay taraamadaana mari jirnay buuqa ku jiri jirnay ka kuma deganeen it was just extremely rough ahead anigana wallahi oo bila tala daway hadda idin kugu sheekeenayo wax kasta indhahayga way hor yaalaan perfectly xasuustaa waxaa xasuustaa aabahay intuu maalin imaaday saas uu ilmaha u fiiriyay midha qalbigayga mu dareemaya ma aqaan anigana de markaa yaraa I swear qof haduu agteeda maro oo magaca aabar dhaho dhagteed way taagnaan jirtay marka ilmayro cuqtadeysan tahay waa dhibaato ma ogtahay qof haduu agmar oo magaca aabar dhaho dhagteed way taagnaan jirtay because dad badan intay gurigan imaadaan waxay isku day jireen aabahan inay caayaan because aabahan ma nala joogin waxay isku day jireen inay cuqdad galiyaan na dareensiiyaan aabahan ma idin la jooga camal لكن أنا الحمد لله رب العالمين أبيهن ونجمع مقنا هويدا أنا وحيد والله هويدي مسكحد هويدي وكجرت قفكم مجرتو وحيدي جرت متقنا هبيك أنت سيحان أنت نوم مرنا يرتي جرت كالي أبيهن وديك مركي أركت دينا عقدة سنة هاي ودي دول كنا الوجود ده وحبنا إيه كرين ما ركته وحيدي جرت كالي مركا ما وحيدي جرت أبيهن ومقيها وأكتهين أبيهن نيروبي وجو وحون هرب وجوها متقنا ها أبيهن وحيدين جينا ميل مريكنك أنا وافيرني أنا هاي mareykanku waxa ku yaalaan webiyaal oo chocolate ka buuxaan chocolate jeclaan jir weligay chocolate webi ka buuxo webiyaal wadana caasana u fiirnaysa chocolate-kii soo orday afkaaga dalaq dhahayo dhinacayaasha dhaha ka dharbaxayaan waxaas hooyada nagu sheekeen jirtay soo anaga wallahi oo bila tala yaqiin waa aniga I believed aabahay inuu mareykanka iyo cirka idin geena aabahay duu dhaw waxa aaminsanaan jir inaa biibeeno I believed in my dad 100% إلا هذا تاني أبيه دو واحد هو آمسنة أبيه هذا الكيس هو no going back ما فهمت I have 110% trust and confidence in my dad مركا وحا حسوستا إذن لا يهي أبيه أو إمادة مال نيروبي نوغو إمادة قحوتوغو نوغو إمادة ساس ونوفيري أسير حتى أبيه فقيرة وعق بس ما فهمت كأنو مركو حوي أركد دي ساس دي حوغا قلبي مفعنين صبحو دهن ما أقان ميلا آدني كاكومو I remember eating ice cream and I remember it was the best ice cream of my life. anigana waa cuqdadeysnaan jirnay because dad markay imaadaan ee aabahay wax ka sheegay magaca aaba markaa maqlaba dhagteeda bay taagnaan jirto dhigisana waxa la sheegayaa hadda xataa ma xasuustay like I remember wax oo amaan ma ahayn ma fahantay so markii aabahay laga hadlo jaar defense fan ku jiray marka awood lahayn waxba ahayn oo cunug Ingiriis aad tahay saas la ahaan jirin amanka inta ku soo waa fiirin jiray dadka aabahay markay ka hadlayaan because I knew my dad was amazing ma fahantay so marka walaalayaal xasuusta ilmaha waxaa laga yaabaa markay yar yihiin inay xasuustaan 100% markay weynaadaan 100% laakiin haddii aad bari maxaa sameysay they don't know that's why aku leeyahay waa xasuusta aabahay hadalku diyaaradana dhahay waa xasuusta aabahay qaxootiga markuu noogu imaado wuxuuna dhihi jiray I remember everything like hadda taanay dad xoogaa maskaxday chickenka iyo balaayada Mareykanka u maleena Mareykanka balaayada lagu cuno inta cuna u maleena wixii dhawa ilaa wadarta هذا يود سكان شالم حاسة يسمع قا ولال لكن I remember واحد كاستمر كايرا واحد كاستو ولا بلا تلا واحد سوستا that's why I'm telling you guys my dad is a hero my dad is a legend والله legend كل شيء قاعد دمبو أبيه كبلا بتاع كل باتا because أبيه وحو سمي you guys ده بدل ما سمي كران of course it was because of Allah سبحانه وتعالى but أبيه وحو سمي أنا مركا كفكره مر أنا بقيروضة oh my god سو كستمي So how وقفك ابن آدم كسمي قف has nothing to go from nothing to everything I mean if you can't tell my dad is my hero ما فهمت على كل حال أبيه هذا وجهشان سؤالها أبيه وأجوب بدسان فيديو كل جيسا كصوص بنا فيديو بعدين صوص بنا أو بعدين ده I'm gonna tell you my dad's legacy hero نمدي ستم بعدين صوت لجاية أو هالفيديو صح